qabashada shir u dhaxeeya hogaamiyaasha maamulada iyo madaxda dawladda ayaa ahaa mid ka dhashay shirkii Dhuusamareeb ugu soo ilaaday maamul goboleedyada waxaana magaalada Dhuusamareeb si mugle u soo gaaray ufuud ay kala hogaaminayaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre inkastoo shirka la filayo inuu dhaxmaro dhinacyada uusan wali qabsoomin haddana waxa halka ay kala degan yihiin mas'uuliyiinta ka kala socda kulamo gaar ah sida ay wararku sheegayaan looga hadlayo qaabka shirka loo wajihi doono Abed Sheekhdon Diriye gudoomiyaha arrimaha bulshada Galmudug ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in shirka dhinacyada ku dhaxmaraya Dhuusamareeb ay ka soo bixi doonaan go'aano dhaxalgal ah maamul goboleed iyo wasiirada madaxweynihii meesha waxaa ka muuqata masiir siyaasadeed oo maanta federaalka inaan idin u maqnayn oo ama ismaamul goboleeda ama dawladda dhexe ama xukuumadda ama fulinta meeshaas waxaa ka muuqata horta in culays jiro culayskaasoo ka yimid fool la filayo inay ka timid doorashada guud meesha lagu dhaqaaqi doono sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay horta marka ugu horeysa shacbiga Soomaaliyeed raas dambuuli iyo raas afeer dhigtay hayaan bulshada rayidka ay kalay ku leedahay qalbi ay ku leedahay waana la socotaa horta waxaan isleeyahay waxaa ka soo bixi doona yukun khayr meel loo dhaqaaqo oo la isku afkarto oo laga doodo Abdiwali Ahmed Abdiwali Dhagacade oo kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku dhaqan Dhuusamareeb ayaa dhinacyada ka dalbaday in shirka ay ka soo saaraan arrinta Soomaaliya maanta rajada fiican soo muuqatay maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya muddo hal sano iyo bar xiriirkoodu ma fiicnayn kulamo caynkaana ma aysan yeelan dadka hadda diiday rada gashay ummaddu xoogaa rajaxumay ay ka qabeen xasilooni siyaasadeed la waayo in xasilooni darro timaado haddii xasilooni darro timaadana nidaamka iyo kala dambeynta iyo waxa lagu wada socdo waa isfahan iyo isgarasho haddii mesela hal sano iyo xoogaa dadku ay rajaxumadaas ay arkayeen maanta waa ka duwan tahay nasiib wanaag maanta waxaa bilaabatay in hor fariisto in la wada hadlo aan wada hadalna anigu waxaan u fahmi karaa aqliga garaadkeedu isiinaya aan wada hadalna waa aan heshiino maanta marka rajada aan qabnaa waxay tahay in la wada hadlo in wax lagu heshiiyo in wax la isla ogol yahay meesha ka soo baxaan rajo fiican ay muuqata hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay qabashada doorasho ka dhacda Soomaaliya isla markaana ku qabsoonta waqtigii ay ku asteysneed kadib markii guddiga doorashada madaxa banaan ay dhawaan shaaciyeen in dalku aysan xilliga ka qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah ayna u baahan yihiin in la siiyo muddo ay ku soo diyaariyaan hayeeshee hadalkaas ayaa waxaa ka hor yimid hogaamiyaasha maamulada iyo siyaasiyiinta qaar Abdiwali Dhagacade ayaa qaba in xilligan dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah balse waxa uu sheegayaa in shirka madaxda ay ka soo saari doonaan qaab doorasho oo la isku waafaqsan yahay doorashada qof iyo cod inay dhacdo Soomaaliya dawladda markii la soo doortay 4 sano ka hor 10 sano iyo bar ka hor ayay ahayd in laga shaqeeyo sabab kastoo hadda loo gaartay caqabadii doonta hor istaagto ma dhicin in hadda la soo diyaarsho hab doorasho qof iyo cod ah oo ahayd habkii loo doortay dawladda hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka yahay wax kasta oo sabab kasta loo yeelo dib u dhac iyo in la soo diyaari waayo nooc doonta noqoto haddeetan ma taagna in qof iyo cod la qaban karo marka waxaan qabaa haddaan qof iyo cod dhici karin in laga wada hadlo maxaa dhici kara qaabkaysa u dhici karaan waxaa kaloo soo haray muddada inay ku dhici kartay in kale Soomaaliya horta halka dawladnimo aan haysano waa in 4 sano mar ay doorasho dhacdo oo dawlad kasta teemkeedii aysan teem ku darsan technically inuu taqaanaa 6 bilood iyo 3 bilood iska diitama laakiin muddo kororsi shaacsan oo 2 sano iyo wax noocaas horena ma soo marin haddana ma sugayno insha Allah inay soo marto Dhuusamareeb ayaa marti soortay mas'uuliyiin ku kala aragti duwan siyaasadda Soomaaliya iyo nooca doorasho ee dalka xilligan ka dhici karta hase ahaatee duufaanada siyaasadeed ee dalka uu marayo xilligan ayaa sababtay isu imaadka madax aan muddo is arag Abdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Dhuusamareeb haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi